جوعاوة هذا الرجل نكاس ونين عظيمة جدا جدا مالمه اللي بلابي عمل كان مال رجي وها رنتي أساسي ما أنت نعمل كاكا ومريو مال وح بدن باليدي أنا وحن دوني يوم ما دام عاود شمعين وبدني هاي لبضغ جهود إن كشيرو قضية مهمة أو كسابسن horumarka bulshadu iyo qofku iyo qaranku iyo qabiilku iyo xataa aadanuhuba waxay ku dhisan yihiin oo ku taagan yihiin qof bani aadama in la dhiso waxa la yiraahdaa su'aal bal isweydiiya horumarku halku ka bilaama wuxuu ka bilaama madaha al-insaan ولذلك رسالة إسلامكو waxay ku wajahantahay waa insaanka ilaahay waxa la yiraahdaa subhanahu wa ta'ala aadanaha wuxuu u keenay dhulka saddex shaqo in laga soo baxo marka aadanaha wuxuu u keenay inuu khaliif dhulka uga noqdo uu dhulka isagu maamulo shaqo labaad buu keenay inuu dhulka camiro ku camiro caruur ku camiro dhismo ku camiro cilmi ku camiro beero ku camiro laamiyo qurux badan taas waa talaad shaqada saddexaadna waxa weeye waa inuu ku camiro cibaado saddexda aayadood suuratul baqara laba laga helayaa suuratul daariyad namid baa laga helayaa haafka ugu dambeeya marka insaanka reer maalmaal waxa weeye waa qof aqalgiisa la dhisayo insaanka loo baahan yahay waa kee insaanka loo baahan yahay ee horumaraya dhaqaale ahaan fikir ahaan cilmi ahaan waa qofka dhisan saddex meelood ka dhisan ruux ahaan waa qofka dhisan aqli ahaan waa qofka dhisan jismiyahan waa qofka dhisman hadii aan inta idii siyar faafahiyo waqtiga ma doonayaan ku dheeraado qofka waxa laga helaa in waxa laga rabaa qofka doonaya inuu guuleysto if ya aakhiraba 60 tilmaamnood ama 7 aan ka dhigo koow tilmaamta koobaad qofka laga rabo doonaya inuu if ya aakhiraba guuleysto waa in noqda saliimul aqeeda tasawurka aqeedada uu ka aaminsan yahay cirkan dhulkan jiritaankan koonka waa in horta saliim waa in noqotaa إنه إلهي تشير قفك وينو آمنا طلبات مركو إله آمنه صحيح العبادة قفك وينو نقض قف عبادة دي أي حسن تهاي أي صحيح تهاي عبادته وشدال كنرشة أدي جيدا إنه كوة شهينه أنا بري دنبو آدم حو أخري الحمد لله وحن أقادي قفك بني آدم كاي هل كان بوكا الاسماء ماها مريحة إيو ماها قروحضة لكن إنسان كوا هل كان halkan waxa dhisayana waa xiriirka aynu ilaahay la leen kullama aynu ilaahay u dhawaano oo kullama aynu horumarno tasaddexaad waxa weeye aqeedo iyo cibaado qawiil jismi qofku waa inuu qof jirkiisu dhisan yahay oo jir caafimaad qaba ayaa waxa ku jira buu arsado yiraahdaa filosofkaasu aqli caafimaad qaba wuxuu ku jira jir caafimaad qaba marka qofku inuu jirkiisana xaq siiyo wadaalika waad garanaysan qisadii nabiga ninkii uu yimi calayhi salaatu wasalaam ee ku rasuulka ilaahay habeenkii oo dhan waan soo jeedaya muxuu ku yiri may laga mar habeenkii oo dhan soo jeedi fa'd kulli di haqqin haqqa wa li nafsika alayka haqq naftaada iyo jirkaaguna waxay ku leeyahay xaq qofku markuu jirkiisa dhiso qayb ay ka tahay guushiisa waa in noqdo qof matiinul khuluq qof akhlaaq wanaagsan akhlaaqdu waa qadiyad muhiima لكن أخلاق ولا بقيبود أخلاق دوني دون بس لو وافقسن أمانة دا رونتا بينتوين حونتا وقضية اللي سووا وافقسين حتى فلاسفة واحد الأخلاق الإنسانية بلا لكن واحد شراء أخلاق إسلامية إما كما تقول حرام ينال عنين حرام ينال شخص ولا لك يحيي من كوحد كلها عايمس شرعية عايمس قال أبا شراء حوجة شيء وحوجة شيء ده وقضية أخلاقية إنك واحد اللي وحها كجنع سنينة وحنا كجنع سدا وحاس وحرام وحسنا وحرام نينك يا جبر حدير كده أصل كإسلام كاركتيز وحرام إلا مو يعني وحي سجوت كران مهر شرعية لكن ده فلسفة الرجال كوا إباحي واللي سب الناي هذا يذكرها للنقطة توجدا بيسقف كوين النقطة نافعة لغيره قف تدك واحترام وشقد وهالكن ما يوفر ديان bulshada ayay wax tarayaan bulshada ayay doonayaan in ay wax ka bedelaan in ay wax ku darsadaan bulshada koox kaliya xukuma bedeli karto qayb kaliya xukuma bedeli karto siyaasiyiintu kaligood xukuma bedeli karaan bulshada isbedelkeeda waxa ka wada qayb qaadanaya dhammaan dadkoo dhan berigii Mareykanku uu qabanayay xagga sare wakaalada NASA markii diray saddex gamceed ayaa nin wariyaaba wuxuu wareysanayay dadkii meesha joogay saaruuqa laga diray
ninbaa wuxuu weydiiyey markaa xaadhayay meesha shaqadu ka socotay ayuu yidhi adu maxaad meesha ka qabanaysaa wuxuu yidhi kuwan baan ku caawinayaa inay dayaxa tagaan marka isaga laftiisu wuxuu iska dhaadhiciyay inuu shaqo hayo marka qofka muslimka ah waxa laga doonayo inuu noqdo naafic al-qayb nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay dadka waxa ugu khayr badan kiina ugu anfac badan qadiyada ugu dambaysan ku soo gabagabeeyay waxa qofka muslimka ah ee guuleysanaya ifya aakhiraba waa qof xariisan ala waqtigiisa waa qof ku bakhayla ta ugu dambaysana waxa weeye munadaban fi shu'uni qofku waa in noqdo qof nidaamsan ayuun baa noqon kara qof guuleystay